بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسان داوديال meel kasto aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bari ka soo degay Muqdisho wax ku ogow ujeedka safarkiisa. dowladda Djibouti oo dadkeeda ka soo daadgureysay deegaanada dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo war ka soo saaray rabshadaha dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya ka socda. ciidamada Itoobiya oo xiray madaxweynihii hore ee dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Ilay. taliska booliska maamulka Jubbaland oo amar culus ku soo rogay dadka ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. أمير كتر سنان جري لبي 12 سنة أورك الشباب وإسكسو ديبي دولة فدرالك Soomaaliya حق علوسنا بحيي سركال كتر سنان جري نساء أو شيء إن الشباب أي ليهين وزارة جار أو لا شقية داود يال إنتاسي وحي أهايون قد بدي ورركا هات نكسو دواد أسقي فافاسن. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa cambaarayay rabshadaha ka dhacay dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay kuwaas oo lagu burburiyay hanti badan isagoo ku baaqay in si dhaqsi ah loo soo afjaro. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in rabshadihii ka dhacay labada magaalo ee Jigjiga iyo Dirdhaba lagu burburiyay hanti aad u fara badan oo aadna uga xun yahay isagoo ku baaqay in si dhaqsi ah loo soo afjaro rabshadaha. Abiy Ahmed hadal uu jeediyay ayaa wuxuu hoosta uga xariiqay inay lama maarmaan tahay in si degdeg ah loo joojiyo rabshadaha ka socda dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya sida uu u sheegay idaacadda qaranka Itoobiya. xukuumadda federaalka Itoobiya ayaa amartay in ciidamadeeda ay faragelinayaan dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya si looga hortago rabshado dhaca. Sabtidii ayaa waxa ka dhacay dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya rabshado lagu dalbanayay inuu xafiiska uu baneeyo madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Ilay. wararka inaga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in gacanta lagu dhigay madaxweynihii hore dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar. madaxweynihii hore ee dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynaha dhul deegaanka Soomaalida kadib rabshado socday maalmo iyo khilaaf soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Itoobiya. ilaa ay hadda lama garanayo halka ay u kaxaysteen ciidamada militariga Itoobiya. isla shalay waxaa madaxweynaha cusub ee dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya loo magacaabay Axmed Cabdi Sheekh Maxamed. haddaba kusoo dhawaada taariikh yar oo kooban oo aan idinkaga hayno madaxweynaha cusub ee dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweynaha cusub ee loo magacaabay maamulka dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu magacaabaa Axmed Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Ilka Case. waa wiil dhalinyaro ah oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee xilka baneeyay Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Ilay. Axmed Cabdi Maxamed waa 32 sano jir isagoo dhashay sanadkii 1986 wuxuuna ka soo jeedaa beesha ogaadeen gaar ahaan reer Cabdulle. waxaana maanta loo magacaabay xilka markii uu iscasilay madaxweynihii hore dhul deegaanka Cabdi Maxamed Cumar oo cadaadis ba'an u saarnaa muddooyinkii ugu dambeeyay. madaxweynaha cusub ayaa hore u ahaa wasiirka maaliyadda waxaana si weyn ay iskugu dhawaayeen madaxweynihii xilka baneeyay ee Cabdi Ilay isagoo wareysigii ugu horeeyay ee uu bixiyo ku sheegay inuu ku socon doono isbedelo ballaaran oo uu hore ugu dhawaaqay Cabdi Ilay. ninka dhalinyarada ah ee noqday madaxweynaha dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamed wuxuu sanadkii 1986 ku dhashay degmada Garbo ee gobolka Fiiq wuxuuna wax ka bartay jaamacadaha Dirdhaba iyo Bahardar isagoo markii ugu horeysana magaalada Goday ka noqday madaxa maaliyadda. Axmed Cabdi Maxamed waxa kale uu soo noqday duqa magaalada Qabri Dahar isagoo xubin ka ahaa xisbiga ESBDB ee ka taliya dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuuna xilligan ahaa wasiirka maaliyadda isagoo maanta si ku meel gaar ah loogu magacaabay madaxweynaha dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweynihii hore ee dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ayaa la sheegay in heshiis uu la galay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Itoobiya oo xilka uga dagay laakiin wuxuu sii joogayaa magaalada Jigjiga isagoo sii haynaya gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Somali People's Democratic Party. magaalada Muqdisho waxaa si weyn uga socda qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo inuu bari ka soo dego garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyay degnaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa bari imaan doona magaalada Muqdisho iyadoo ay soo baxayaan warar kala duwan oo ku aadan ujeedka safarkiisa. sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada soo dhaweynta Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho u imaan doona sida uu wada tashi ula sameyn lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo iska wareysan doona xaaladda siyaasadeed ee uu ku jiro dalka. wararka qaar oo aan la hubin ayaa sheegayo inuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu si rasmi ah ugu soo guurayo magaalada Muqdisho oo u noqon doona saldhig. xasan sheekh maxamuud ayaa dalka ka tagay markii loogu guuleystay doorashadii Soomaaliya ee dhacday 8 February sanadkii 2017 markaas uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku guuleystay madaxweynaha federaalka Soomaaliya. dowladda Djibouti ayaa magaalada Dirdhaba ka soo daadgureysay ugu yaraan 200 oo qof oo dalxiisayaal. dowladda Djibouti ayaa magaalada Dirdhaba ka soo daadgureysay ugu yaraan 200 oo ruux kuwaas oo u joogay magaalada Dirdhaba dalxiis sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. Djibouti ayaa dalkaasi u dirtay diyaarad khaas ah. arrintan ayaa timid kadib markii rabshadaha Dirdhaba ka socday lagu dilay ugu yaraan 9 ruux oo reer Djibouti ah. rabshadaha Dirdhaba ka dhacay ayaa wuxuu ku saleysnaa qoomiyado waxaana magaaladaasi ku dagaalamay Soomaalida iyo Oromada. Ra'iisul Wasaaraha Djibouti ayaa shalay amray in si degdeg ah muwaadiniinta Djibouti loo soo daabulo. xaalad amaan darro ayaa weli ka jirta magaalooyinka dhul deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay isla garteen in ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM la geeyo wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo oo dhibaatooyin amaan darro ay ka jiraan. wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee ka dhaca wadadaasi ay geystaan ururka Al-Shabaab isla markaana dadka lacaga baada ay kaga qaataan wadadaas waana sida hadalka uu dhigay. wadada dheer oo isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Baydhabo intaan ognahay dhibaatooyin badan bay shacabka ku hayaan dadka ganacsatada iyo shacabka wadooyinkaas isticmaalo annagoo og inay canshuuro baada ay meelaha qaar ooga qaadaan dhibaatooyin badanna ooga geystaan. dowladda Soomaaliyeed iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba qorshe waxaa jiro oo bisha 11aad ilaa iyo bisha 10aad hadii Ilaahay idmo la rabo in wadadaas lagu nadiifiyo shabaabka meelaha jooga dhibaatada bulshada ku hayana looga saaro. meelaha ay baneeyeen sida degmada deegaanka Leego iyo tuulooyinka ku hareeraysan ciidamada Ugandheeska ee AMISOM waa hore baneeyeenna in ciidamada AMISOM kale la geeyo si ay boosaskaas u baneeyaan. ka maamul goboleed ahaana doorkeenu oo iska muuqda talada ugu weyn iyo ka shaqaynta amniga maadaama dadka deegaanka nahay dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya laga raba. ciidamada aan isleenahay wadadaas waa ay furi doonaan amnigana waa ay ka wada shaqayn doonaan waxay noqonayaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed SNA iyo ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kadib kulan gaar ah oo magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose ay ku yeesheen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay ka soo saareen dhowr qodob oo ku saabsan dhinaca amniga. kulanka ayaa intiisa badan waxay uga hadleen dagaal beeleedyo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. dagaaladaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed. taliyaha ciidamada booliska gobolka Jubbada Hoose Korneel Maxamed Naasir oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay qodobadii ka soo baxay kulankaas. kadib markii uu golaha amnigu ee dowlad goboleedka Jubbaland ay dood dheer iyo falanqayn ku sameeyeen xaaladda amni iyo bulsho ee ka jirta deegaanada kadib markii ay warbixin dheer ka dhageysteen wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii ay warbixin ka dhageysteen guddigii odayaasha dhaqanka oo ku jiray xaaladda deegaanka muddo dheer kadib markii ay garwaaqsadeen in ay lagama maarmaan tahay in tallaabo amni la qaado si xaaladda loo dejiyo waxay go'aamiyeen qodobada soo socda. 1 in qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland ay baadhis dhab ah ku samayso dambiyadii dhacay cidda ku lug lehna ay baadhis dhab ah ku samayso dambiyadii dhacay cidda ku lug leh iyo nuxurka waxa keenay khilaafka. number 2 in tuulada uu khilaafkaasi ka taagan yahay la joojiyo dhismaheeda ilaa amar dambe iyadoo tirakoob rasmi ah lagu samaynayo waxa hadda ka dhisan. number 3 in la soo qabto sharcigana la hor keeno dadkii geystay dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee lahaa dhimashada iyo dhaawaca.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inuu dhankooda isku soo dhiibay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysay ururka Al-Shabaab oo sanado badan la shaqeynayay. ninkan oo sawirkiisa lagu faafiyay bogga dowladda ay leedahay waxaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Xuseen Wardheere, balse ururka Al-Shabaab waxay ugu magacaabi jireen magaca Sheekh Bilaal. waxa ay sheegtay dowladdu in 12 sano kadib uu isu soo dhiibay kadib markii uu Al-Shabaab mabda ahaan sidoo filayay aysan noqon, dowladana oo isku soo dhiibay Wardheere. amiirkan isu soo dhiibay ayaa sheegay in Al-Shabaab iyo Daacis ay yihiin firqooyin dagaal oo doonaya inay saami ku yeeshaan siyaasadda dalka ee waxa ay u diraraan aysan ahayn mid diin. marar badan saraakiil ka soo goosatay Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya ama si madax banaan u shaaciyay inay iskaga baxeen ururka Al-Shabaab, kaasi uu ugu dambeeyay Mukhtaar Roobo Cabdi Abu Mansuur oo sanadkii hore si cad u sheegay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab. xarun lagu magacaabay Hiraal ayaa waxay soo bandhigtay daraasaad ay sameeyeen oo ay ku ogaadeen in manhaj gaar ah ay shabaab ku sameysteen oo ay ku baahiyaan dalka. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha xarunta Hiraal ayaa wuxuu la soo shaqeeyay xilan la ka soo qabtay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya, isagoo xitaa mar la taliyay madaxweyne soo noqday. Al-Shabaab sida ay magacooduba ku sheegteen aad ka fahmayso ajandaha tooska ay leeyihiin inay fikirkan dhalinyareeyaan, way fahamsan yihiin meesha maaragtay ummad loo fadhiisan karo inay tahay dhalinyarada. of course ra'yigan oo argagaxa ah fikir dhalinyaro ma aha, waa fikir dad waaweyn ay soo sameeyeen, laakiin waa khidad ay dejisteen oo ay ka wadaan in uu ururku ahaado urur mar walba dhalinyarada shidaal u noqdo. waana taktiig ay maaragtay ururada isbedelada iyo kacaanada sameeyo dhan ay maaragtay xoogga saari jireen. marka laba si ay shabaab dadka u qortaan, midna waa mid waqti fog leh oo ay soo maaragtay abaabiyaan, iyo dad ay jidka ka helaan oo labaduba dhalinyaro ah laakiin kala da'weyn. midda dambe oo ah inay dadka ay jidka ka heleen oo ay qortaan iyagoo xoog leh, kuwaas waxay ugu talagalaan waa wax markaas isla jaan qaadaan oo aysan caqiida ahaan rabin inay sii wadaan. laakiin hoggaanka oo mustaqbalka ay rabaan waa hoggaanka marka ay caruurnimada la soo bilaabaan oo dugsi quraan 8 sano iyo wixii ka sarreeya ay la soo bilaabaan ilaa 15 sano. 7 sano ay xoogga saaraan. 7 sano qofkii ay helaan waxay hubaan in uu ebed aaminsanaan doono fikirkaas. manhaj baa la soo hadal qaaday Al-Shabaab iyo fariimo kooda inay dhalinyarada soo gaarsiiyaan Muqdishona waa uga baqdeen inay saameyn ku yeeshaan. manhaj noocay bay dhigaan? manhajtoodu waa manhaj guracan oo mabda'ooda ku salaynaya mabda'ooda in dadka la qaybiyo, in dad maaragtay yar oo barakaysan inay jiraan in dadka laga dhaadhiciyo oo maaragtay keligood islaam ah, keligood wadadii jannada haya, inta kalena la yihiin dadkii lala dirirayay. taasaa sababaysa in qof ay ka soo dhaadhiciyeen qof salaad ku jira oo masaajid ku jira oo rukuucsan in uu la soo dul istaago xabad uu madaxa uga dhufto. ma keeni karto qof caadi ah. arrintaas waa qof maskaxdiisii aad loo soo bedelay. marka manhajtaas laba si ayay yeelaan. horta sida warbixinta ku cad wixii aan aqoon jirnay oo ahayd dugsi quraan waa ay baabi'iyeen. ciladay ku arkeen dugsi quraanku inuu ka madax bannaan yahay ay ogaadeen, oo macalinka dugsiga qof aan ayaga ahayn ayuu caadiyan noqdaa. qofkaas si uu inuu uga xeeladaysto oo amaradooda qaato isku dayaya, laakiin inuu dad u soo saaro way ka gaagaabsadaan. markay arkeen marka in dugsi quraanadii aysan ahayn meel oo ay dad ku soo saaraan way baabi'iyeen. waxay marka qaabkii u bedeleen waxay tahay in ay institutionno macadyo oo diini ah oo caruurta iyagoo yaryar lagu abuuro oo quraanka iyo ay ku baraan iyaga
macaahid ay maamuli karaan oo waalidiintu maaragtay laga soo qasbayo inay maaragtay lacagta xataa wax ka bixiyaan iyo wax lamida waxay qabaan sida warbixinta ku cad maaragtay wasaarad u qaabilsan ay hawshaas maamusho dhinaca kaleeto iskuulaad oo caadi ah oo iyaguna ay maamulaan oo private ayaa jira oo lagu dhigo manhaj iyagu ay ansixiyeen ee ogolaadeen manhajkaas waa maaragtay taariikhda marka la dhigaayo taariikhda waa la gurrici karaa mid caadiyana waa la dhigi karaa juqraafiga sidoo kaleeto juqraafi oo marka waa manhaj ay maadooyinkii iyaga u hiilinaya oo iyagu ay samaysteen ayay kasoo dhaadhicinayaan marka qof Soomaali ah oo aan taariikhda ka duwan aaminsan juqraafigeena juqraafi aan ahayn oo maaragtay map ay iyagu aaminsan yihiin ay u dhigaan iyo sidoo kaleeto maaragtay qofsan waxa soo hadal qaadeen qabaa'ilada inay qasbeen inay dhalinyaro u keenaan waliba ay maal geliyaan qaarkood xarumo ay qasab ku dhisaan marka Aziz horta waa inaan fahano nimanka shabaab inkastoo magaalooyinkii waaweynaa laga bixiyay dhulka badankiis weli iyaga maamula dhulka Soomaaliga waa dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah xoolaha lagu raacdo iyo dhulka beeraha lagu fasho intaba marka qabaa'ilka Soomaalida oo ka soo bilowda xarar dheere ilaa maaragtay xuduudda Kenya iyaga weli maamula qabaa'ilku iyaga la macaamilaan marka bulshada badankeedna meeshaas ay jirtaa magaalooyinka ma joogaan daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynay barnaamijkeena wararkii ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka daawada habeen walba marka laga reebo habeenimada Jimcaha ah waxaad ka daawan doontaan barnaamij noocan oo kala ah garqaad haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh mahadsanidin